السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد cunto caafimaad galabtii afurkeenii iyo waxyaalihii aan ka diyaarsanay nala daawada. Baaqulos waxaan kusoo shubtay qiyaastii koob iyo qandaca, waxaan kusoo darsaday qaado sokor iyo qaado yeast kadibna waa daboolayaa ilaa 5 daqiiqo. Biyaha yeast ku qasaysid waa inaysan saacidkaaga kulleen oo haddii gacantaada aad taabsiiso biyo ku gubaya aysan ahayn oo qandac yar ay yihiin. Waana inaad sokor yar ku dartid ama malab wixii markaa haysatid. sida ayaa ku ogaan kartaa inay yeastigaada fiican tahay in kale. shan daqiiqo kadib yeastigayga waa diyaar. waxaan kusoo darsanayaa 2 qaado oo saliid ah. saliidan isticmaala waa olive oil iyo kabsar caleen iyo oregano oo qalalan. yeastiga waxyaalo badan loo isticmaalaa. aniga maanta waxaan sameysanayaa flat bread ama rootiga balbalaaran. waxaan kusoo darsanayaa burka plainka ah 3 koob oo burka cad oo plainka ah. aniga waxaan isticmaalayaa unbleached. waxaan kaloo kusoo darsanayaa semolina koobka haafkiisa. saas oo eg tahay waa daqiiqa sirko jaalaha ah. half a cup aan kusoo darsanayaa. cusbadii baan ku darsaday. marka hadda si fiican aan u xashaayaa oo si fiican aan rabaa inaan ilaa 10 daqiiqo waa inaan si fiican u qastaa burka oo ilaa 10 daqiiqo. aniga hadda waa jaray videoga laakiin se waqti dheer aan qasay waa inaan si fiican oo kugu qasmo waana inuusan saacidkaaga adkeen. marka ugu horeysa gacmo kaaga dhigdhigaa laakiin se haddii aad iska dul qaadato hadhowtii gacantaada uu ka haraaya oo uu ku fiicnaanaya. marka marka saliida haddana kusii daraya oo saliida aan rabaa inaan si fiican ugu xasho si intii aan isticmaali lahaa burka uu kaasii adkeynaya. marka inuu ka adkaado looma baahna. waa inuu saan ku ahaado oo saaidna kuugu jilcan yahay. hadda aniga waa dhameeyey kadibna waxaan ku celinayaa baaquligii aan marka hore ku qasayay. saliid yar aan kor ka marnaa si uusan korka uga qalalin. kadibna waxaan sugayaa 1 saac. meel waxaan dhigayaa oo warm ah oo jikada kamid ah ama ovenka gelin kartaa oo dansan. hadda waxaan sameysanayaa suubkii ama maraqii aan rootiga la geyn lahaa. alaabta inta ii saaran ayaana ka sameyn doonaa. fishkaas maanta ku darsanaynaa waa kalluun oo frozen ah. waxaan kaloo isticmaalayaa red lentils. waa digirtii hore aan isticmaalaynay oo nooc kale ah. tii jaalaheed ma aha waa tu red ah. markaad waxay la kartaa qudaarta kaleeto iyo digirtan isku maray karaan. aad u jilcanta waqti dheer ma qaadato. digsiga caadiga xataa waa lagu karsan karaa oo ma qaadanayso waqti dheer ma doonayso. hadda marka qudaartan diyaarsanayaa oo waan soo nadiifsanayaa waana soo jaranayaa. marka qudaarta waa soo diyaarsaday. waxaan ku digsigaanaan isticmaalayaa instant potka. kadibna hadda macnaha waa soo daartay qaybta ku qaleynaysa qudaarta. waxaan soo saliid yar aan kusoo shubtay oo 2 qaado camal ah. toontii iyo basasha aan ku darsaday marka oo xoogaa aan qaleynaya. in yaroo filfilaan ku daray.
iyo cusbadii kalluunkii aan kusoo daray marka suubkan mar hore in badan hore u soo sameeyay inkastoo ay different tahay digirta isticmaalay oo lentils-ka aan isticmaalayo waa midda reerka ah tana kasii jilicsan oo waqtiga kasii yar waqtiga karinaysid ay ku karsamayso marka hadda qudaartii dhan waa ku darsaday hadda waxaan kusoo darayaa laantii oo ahayd rosemary iyo basbaas karsiisa ugu daray basbaaska aad uu kulul yahay marka ma jaraayo basbaaska waxaan kusoo darsaday xoogaa karootadii iyo dhowr xabo oo baradho ah basbaaska ma jarin oo waxaan rabaa inaan sidiisa saaid uu kulul yahay hadii la jarjaro marka laakiin tartiib uu ugu baxayaa hadii oo sidiisa ugu ridid kabsar caleenta sidoo kaleeto waxaan ka reebaa in yar waxa dhan waa isticmaalaa caleenta kaliya ma isticmaalayo inta yarta aheedo waxa iska gooyay marka saana uu eegyahay ma sha Allah biyihii aan kusoo darsan doonaa hadda marka biyaha waa u qiyaasanaysaa thickness-ka rabtida ku xiran tahay biyaha ma sha Allah pressure-kan ku karinayaa ilaa adiga 15 minutes aan gelinayaa maadaama digirtan ay ka jilicsan tahay tii hore 20 daqiiqo aan ku karin jiray tan hadda 15 minutes rootiga waa diyaar ma sha Allah double soo noqday hadda laba qaybood aan ka dhigayaa weelashaas aan rabaa inaan la geliyo ovenka waxaan ku soo darsanayaa samaliinadii wax yar aan hoosta ka dhigayo si uuna ugu dhigin marka gacanteedaan kusoo balbalaarinayaa oo waxaan gaarsiinayaa weelka kadibna farahayga fiidoodan kusoo ku dulduleelinayaa saliid yar aan ku darayaa iyo farahayga fiidoodan kusoo dulduleelinayaa oo waxaan rabaa inaan saan oo kale markaad samayso wuxuu si fiican u bislaanayaa oo saliidana way gaaraysaa hoos marka hadda waxaan kusoo daray in yar oo sea salt aan kor kaga daray iyo kabsar caleenta qalalan marka waa inaan sugo hal saac oo kale oo mar labaad inuu soo faxo waaye oo hal saac oo kale haddana aan dhigaya meel diyaar waaye ovenkaygana waa sii kululeystay 400 ayaan ku beegareynayaa 25 daqiiqo hadda cabitaankeena waa cabitaanadeeni hore aan samaysan jirnay cabitaankaygu waa diyaar inta hadda oo rootiga igu jiro cabitaankeen aan diyaarsaday afurka 10 daqiiqo ka harsan hadda suubka waa diyaar ma sha Allah hadda baaqulgaas aan soo diyaarsaday inaan suub ku diyaariyo saan ku soo baxay aad uu kulul yahay wax yaraan sugaa ilaa uu inta miiska geeyna ilaa uu qaboobayo xoogaa yar waxaas waxa waaye waa rosemary-ga laantii aan ku daray aan ka bixiyay ma sha Allah qudaarta dhan waxaaba karootadii iyo waxa la arkaa iyo baradhadana sida iyadoo aan ku riday oo maana jarjarin rootigayga diyaar waaye ma sha Allah si fiican igu soo baxay sidaan rabay igu soo baxay
aad u caraf badan yahay wuuna jilcan yahayna ma sha Allah. hadda marka rootiga waa jarayaa oo waxaan u jarayaa si oo square ah oo saas u jilcan yahay oo aad u caraf badan ma sha Allah. marka waxaan u jaranayaa si oo saidna aan u yaryareen oo gacanta wax oo dadka ay gacanta ku qabsan karaan camal. weelkaas aan u diyaarsaday aad u jilcan yahay rootigan. hadda waxaan diyaarsanayaa shaahi shaah badan ma cabno marka carruurta shaah ma yaqaanaan marka anaga le waaye. heelkii aan soo tuntay marka caleenta iyo heelka aan ku ridanaya. weelkaas shaah la iskagama kariyo uu kaa halaabaya haddii oo shaah aad ku karisid. marka biyo kulul aan ku darsanaya shaahi oo caleentii iyo heelkii. marka shaanduu leeyahay shaahmirkiisu wuu la socdaa geedkaas yarka. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad ka heshay fiidiyowgan walaalaha kala share gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.